جعفر شقضوا بلاو مشارتي وقهر يقاتوا. جعفر horta wiilka odagaaga dhalama heeno ها ilaaha badal qaar qabo ku sii ii dhashana wax kuma tarin gabadhaadina way kaa dayaceen saqiir aakhira allah kaaga dhig آمين قدروا ها gabadhaada waxaan caanagu gadaya allah adina kaleed gursanaysaa miya walaal aamin qabri kala xalafkaaga ma cunayso ee kulatiga isida war kuleetigaaga inaan kaaga foqo haddii aad rabtid ima qashiida laaqadayda xasan ima qashiida laaqad qoyskan sheekadiisa kaliya ma ahan inay dan yareen qoyskan sheekadiisa habboon wax bay ku leeyihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada muuqaal cusub halkan nagala socotaan waa Raash Films qofkeeda la hadlayn oo walaalkeen Raash welcome back with another video maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa musalsalka habboon laakiin marka hore channelka subscribe noo saar waa arkaysaa waa soo laabanay update-keen waa saxan yahay maalmahan okay reactionno sidoo kaleeto hadalhaynta baraha bulshada waxyaabihii ugu dambeeyay iyo filmada idinkugu talagalnaba insha Allah waa naga helaysaan laakiin adiga gacanta fura subscribe ka saara sidoo kaleeto like muuqaalka saar comment idinka ma hayo muuqaalka like saar soo ma fiican u gaaro waxaan rabaa inaad sida title-ka ku soo artay inaan ka hadlo season 2 ma laga yaabaa inay ku jiraan waalidiinta habboon yes filimka qofka uu ku magacaaban yahay ownerka ah oo leh waa habboon habboon maxaa ka maqan habboon waxaa ka maqan waalidkeeda adiga waxaa rabtaa inaa ogaatid aniga waxaa rabaa inaa ogaado laakiin waalidka habboon kaliya waxaa laga yaabaa inuu ogyahay directorka haddii ay soo raacaan jilaayaasha iyo cameramanada macnaha reer astaan marka yuu yahay who's habboon's family waa tan la isweydiinayo xalqadii ugu dambeysay waxaa soo baxay tuunkaas ayaa rabaa inaan kaa dabageeyo horta totally filimka waxaa ku jirta dhowr qoys season 1ka wuxuu ahaa kaliya laba qoys qoyska idil iyo qoyska reer ducaale laakiin hadda season 2 waa u batay waxaa kusoo biiray reer ducaale waxaa kusoo biiray qoyskan reer samatar season 1 lama arkin reer samatar oo maxaa yeelay subeer kaliya laga yaqaanay salma yar sidoo kaleeto subeer walaashi oday samatar intaba lama arkaynin okay yaa kale kusoo biiray qoyska kale kusoo biiray waayo qoyska kale ee kusoo biiray waa qoyska reer xasan aamino xasan iyo jacfar iyagana waxaa la doonayaa inaan ogaano so marka labadan qoys maadaama reer ducaalana ognahay idil iyo latirkoodana sheeke ay ku duwan tahay oo season 1 hooyadeeda ay lahayd walaasha habboon ay lahayd ya season 2ga waxaa kusoo biiray labadan qoys yuu yahay qoyskaanay ka tirsan tahay habboon reer samatar oo zubeer qoyskooda uusan ogeyn subeer inuu walaashiisa jecel u sheegto mise qoyskan reer xasan xaqiiqatan aniga qoyska aadka ii soo jiitay oo sheekada habboon la mid ah leh waa qoyskan reer xasan waa aamina jacfar iyo oda xasan qoyskan filimka waxay ku leeyihiin door muhiim ah iga taariikheeye maxaa dhacay maxaa shakiga keenay haddii aad daawatay xalqadii ugu dambeysay hadalkan ila dhegeyso mama aamino islaantan ayay lacag ka qaadataa sida hore usoo aragnay deyntii ayay bixinaysaa oo wiilkan jacfar shaqeeyo la shaqeeyo ninka la leeyahay xirsi la shaqeeyo cafeteriaga la shaqeeyay ayaa dhashay okay bal gabadhan ama aamino iyo maamadan kaleeto waxaa dhex maro dhegeyso qaristeetan aamin qaar allah ku siiyo maba isdhaheen mar dhaba kugu soo celinaa lacagta dukaankaaba ugu soo adeeganaa ku camirana إله سو سهل جعفر شقضوا بلاو مشارتي وقهر يقاتوا jacfar horta wiilka odagaaga dhalama heeno ها ilaaha badal qaar qabo ku sii ii dhashana wax kuma tarin gabadhaadina way kaa dayaceen saqiir aakhira allah kaaga dhig آمين قدروا ها okay waxyaabo badan ayaa filimkan qasan reerkan filimkan way ku cusub yihiin iskama soo gelinin xaqiiqda markaa ku sheego sabab waa loo soo geliyay filmaan musalsal wax badan aan daawanay filmaanta caadiga wax badan aan daawanay kulay filimka reer iska tabaryar ahaan in loogu soo diray sheekada ilama aha filmkan qisada habboon qeyb ku leeyihiin qisada habboon qeyb ku leeyihiin qof walba oo filimkan ku jiro qisada habboon qeyb ku leeyahay habboon meeluu kasoo saameynaya ilama ahan inuu jiraayo qof ayna habboon is arkaynin
except markii laga rabo odayaasha siyaasadda ka hadlaya laakiin inta kale am sure waxaa hubaa sheekada habboon inay qeyb ku leeyihiin okay maamada maxaa la yidhi waxaa la dhahay gabadhan maxaa la yidhahdaa soo ma ahan wiilka odagaaga dhalay micnaha adiga ma dhalin weeyaan gabadhaada ayay ku seejiyeen tii dhashana micnaha kuma nacfin jacfar hooyihiis ma nooshahay we don't know ma garanayno maamadan gabar ayaa ka maqan way ka saqiirta miyaa ma laga dilay ma laga tuuray saqiir allah kaaga dhigaa laleeyahay waayo gabadhaas horey waxaana loo sheegay idil hooyadeeda in laba caruur lahayd midna ay dhimatay shakiya meeshaas jiray qofta labaad ee saqiirtay ama iyada ahayd haddana maamadan gabar labaad waa markii labaad oo gabar lasoo geliyo shakiga labaad qoyskan uu ku imaaday weliba qoyska idil qoyskana ka saameyn badan meeshaan ila daawo marka qadar rabbi ahayd laakiin ayadaa u sabab ahayd gabadhaada waxaan caanugu gadaya allah adina kale aad gursanaysa labadan qof markaa idinka dabageeyo qofkan waa xasan oo odaya hadda maamadan la joogo dhalay jacfar dhalay garka timaa macnaa cirada leh waa jacfar qoftaana waa xasan qoftaana waa aamina waa maamada hadda xasuusay gashay waa 2001 markaa miya walaalay aamine gabadha kale calafkaaga ma cunayso ee kulatiga isidaa war kuleetigaaga inaan kaaga foqo haddii aad rabtid imaqashii dalaaqadayda xasan imaqashii dalaaqada aamino iyo xasan magacyadaa ka garan kartaa haddii aadan shaki kaaga jiro iyadan oo ku tusin karaa ayada waa aamina jacfar xasan iyo aamina waa wada nool yihiin macnaha ismayna furin naagta kale ee maama aamina lala soo guursaday ayaa meesha ka baxday jacfar hooyadiisa xaggee aadee aamina gabadheedana maxaa ku dhacay waxaasoo dhan directorka og anaga ma ogin laakiin shakiga annaga hadda wixii ka dambeeyey qoyskaana ilaashanayna qoyskan sheekadiisa keliya ma ahan inay dan yirihiin qoyskan sheekadiisa habboon waxbay ku leeyihiin yow reer ducaale keligiisa filinka hadda ma wataan waa lagala wareegay sheeko kale kusoo biirtay huis ma noqon kartaa qoyska habboon iyadoo latarkeeda waa inaan ogaanaa arrin kaloo asna muhiima jiro oo filinka aan ku arkay arrinkaas waa maxay gabadhan okay gabadhan barkinta tuuraysa hibi allaa laakiin magaceeda saxda ubax cabdullaahi laakiin hibi ku matalaysaa hibi weli ma soo bixin oo lasma tusin xaggee kaga jirtaa filinka waa sugaynaa iyadana oo hibi weli ma arkin maxay kula tahay habboon xaggee aaday habboon ma reerkaani gacanta usoo gali doontaa reerkan maa dhalay idartikad waa su-aal meesha taaba musalsalka habboon hadda wuxuu yeeshay wejigii hore weji ka bedelan dadkii hore dad ka badan musalsalkan saameyn uu leeyahay daawashadiisa ka garanaysaa in toddobaad gudihiisu 1 milyan ku xiraayo waa filimka ugu saameynta badan ee filim Soomaali jisho qof walbana uu daawado so marka sheekada filimka ee ugu weyn qisada filimka ugu weyn waxay ku socotaa habboon maxaa yeelay iyada magac la siiyay qofka la raadinayo waa habboon waalidkeeda dee qoysas badan lagu soo diray siisanto laba qoysana la tusay xataa wiil kala jiro wiilka shacaariga oo muuqaal Cabdilla Jamaal arkaya oo soo dhacayo wiilkaas leeyahay ugu dambeyn habboon jeclaan doona ma qan Cabdilla ka soo fakata umleena qiskas so marka ma noqon kartaa maamadan inay dhashay habboon muuqaalku ku dheeraaday yaa kula tahay qoyska habboon mar labaad ayay shaki keentay inay yihiin qoyskan Jacfar iyo habboon ma wada dhasheen dadka qaar waxay leeyihiin Zubayra wada dhasheen waxa dhalay no habboon aabaheeda wuxuu noqon karaa xasan laakiin samaster ila ma ah maxaa yeelay maamada sida arkaysid muuna furin aamin iyo xasan weli waa wada joogaan ila fahanteen sheekada maxay kula tahay adiga marka muuqaalka waa ku dheeraaday please insha allahu tacaala sida idin sheegay idin balan qaaday toddobaadkan gudihiisa isniinta wixii ka dambeeyay ilaa jimcaha inta u dhexeyso insha allah taxaanihiinii ayaan bilaabi doonaa dareen jecel oo xayeysiintiisa kasoo daabo wuxuu ku jiraa youtube-keyga dareen jecel musalka dareen jecel xayeysiinta soo arag aan shuur oo hubaa xayeysiinta daawatid inaad ku qanci doontid sidoo kaleeto insha allahu tacaala dhanka facebooka iyadana nagala socdo weerarash films xaggaasna waan soo dhigi doonaa dadkiina facebooka jecel oo marmarka qaar youtube-ka usoo booda haye channelka laakiin gacanta fura subscribe saara like to comment share inta waa noo muhiim muuqaalkan like saar insha allahu tacaala inta kulmi doona muuqaalka xig waxaa idinkaga tagaya sidaa nabadgelyo peace and love